madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo dalka Jabuuti oo sodolkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo sodonkaas sano tanati un bay ka mid tahay ilaahay ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof wada af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lagu bukulay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalayna shirka waliina soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiibo la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xarakooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba hadadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run laga dhigo hala rumeeyo taas baa inaga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan la mid run wixii dhibaato aanu sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qodaas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waan la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdaan u nin idinkana saayis laga ka doonaynaa shalay arintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan nidhi halka war hal wada heshiiyo war wax la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noqdaan khasamaha in maanta wax walba la soo afkarta waxa weeye talaabooyin jiraan maanta la isla afkaran kara halkee ugu fudud ku heshiin karna maxaa ugu dhow ku wada heshiin karayna maxaa adag ana waxa la yiraahdaa maxay ilaa xalay ma kala seexan maxaan dul qaadana halkeen ka goyna maxaa aanu contribution maxaan ku taraa shirkada inuu guuleysto oo noo guuleysano aad baan soo sheegay aad baan u hadal waxaan oo dana warab shirka iyo ummadda in sugaysa maxaa lagu guuleysan karaa intee imka la soo dhaweeyay heshiin karaa intee baa adag maxaa la qaad karaa marka idinkana waxaa deena labadu baa tiimeyla tahay xil baad saaran maanta waxa ummadda dhawreysanaysa halkan idinkana sugan halkan wada fadhina iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkan waa meel iska barakaysan oo in badan baa guulaha gaaraa taana inta san laga dardaarana waana mahadsantii madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo dalka Jabuuti oo sodolkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo sodonkaas sano tanati un bay ka mid tahay ilaahay ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof wada af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lagu bukulay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalayna shirka waliina soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho
aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxaa la isugu yeedhay oo halkan loo yimi dad khilaafsan oo kala fog in ay gaarhaan xal ay isku afartaan dad saaxiiba la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso wakhtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalikooda gaarhaan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag ha laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo ha la rumeeyo taasuu baa laynaga soo ku soconaynaa xagga iyaga waxaanu halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta soomaalida qudaas maanta soomaali maxaa u dana qodobkee u dana eenu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayana waxaanu u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa sidoo kale waxaanu diyaarnahay inaanu dhegaysanno ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaanu dhegaysanno oon dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdhaawaan u nim idinkana saayisleg baanu ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii baa shiray oo hadlay oo la dhegaysanay mas-uuliyaddii waanu soo wareejin guddidan wasaaradda loo soo wareejiyey annagu tilmaantayda waa nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba la isku afgarta waxaa weeye waa inay tallaabooyin jiraan maanta la isla afgaran karaa maxaa inoo halkee ugu fudaynu ku heshiin karnaa maxaa ugu dhowaynu ku wada heshiin karaynaa maxaa adag annagu xagga yar haddaan nahay ilaa xalay maanaan kala seexan maxaynu dul qaadanaa halkaynu ka goynaa maxaa aynu contribution maxaynu ku tarraa shirkana inuu guulaysto oonu wada guulaysano aad iyo aad baanu soo jecin aad iyo aad iyo aad baan u hadan waxaa noo daran war shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imika la sudhayo laga heshiin karaa inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa dee nalabadun baa tiimbayla tahay dee xil baa idin saaran maanta waxaa ummadda dhowreysanayso dee halkaan idinkaan sugayno halkaan wada fadhinaa isaa iyo ilaahay idankii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysanoo in badan baa guulagu gaadhaa dee anugu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantii madaxweynaha jabuuti iyo shacabka jabuuti iyo dalka jabuuti oo soddonkii sannadood ee soomaali burbursanayd intaa la daba joogay caqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaa sano tana tiun bay ka mid tahay ilaahay baa ka jasaacaysiin doona innagii shirkeenna maanta qof waloo af soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahy brofesor geeljire mid beer qodaaya mid doonni saaran qof walba waa faallaynaya shirka waa layna soo eegaya waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin karaa inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxaa la isugu yeedhay oo halkan loo yimi dad khilaafsan oo kala fog in ay gaarhaan xal ay isku afartaan dad saaxiiba la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso wakhtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalikooda gaarhaan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag ha laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo ha la rumeeyo taasuu baa laynaga soo ku soconaynaa xagga iyaga waxaanu halkana lamid
run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta Soomaalida qodaas maanta Soomaali maxaa u dana qodobkee u dana eenu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaanu diyaar u nahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdhaawaan u nim idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii baa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas-uuliyaddii waan soo wareejin guddidan wasaaradda loo soo wareejiyey annagu tilmaantayda waa nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba la isku afgarta waxaa weeye waa inay tallaabooyin jiraan maanta la isla afgaran karaa maxaa inoo halkee ugu fududaynu ku heshiin karnaa maxaa ugu dhowaynu ku wada heshiin karaynaa maxaa adag annagu xagga haddaan nahay ilaa xalay maanaan kala seexan maxaynu dul qaadanaa halkaynu ka goynaa maxaa aynu contribution maxaynu ku tarnaa shirkana inuu guulaysto oonu wada guulaysano aad iyo aad baanu soo jecin aad iyo aad iyo aad baan u hadan waxaa noo dana waran shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imika laisu dhawo laga heshiin karaa inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa dee nalabadun baa tiimay la tahay dee xil baa idin saaran maanta waxaa ummadda dhowleysanaysa dee halkaan idinkaan sugan halkaan wada fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysanoo in badan baa guulagu gaaraa dee anigu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantiin madaxweynaha jabuuti iyo shacabka jabuuti iyo dalka jabuuti oo soddonkii sannadood ee Soomaali burbursanayd intaa la daba joogay caqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaa sano tanatii unbay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaaysiin doona innagii shirkeenna maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geeljire mid beer qodaaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka waa layna soo eegaya waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin karaa inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxaa la isugu yeedhay oo halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afkartaan dad saaxiiba la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalikooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goosto ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo ha la rumeeyo taasuu baa laynaga soo ku soconaynaa xagga yaga waxaanu halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta Soomaalida qodaas maanta Soomaali maxaa u dana qodobkee u dana eenu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaanu u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaanu diyaar u nahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdhaawaan u nim idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii baa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas-uuliyaddii waan soo wareejin guddidan wasaaradda loo soo wareejiyey annagu tilmaantayda waa nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay
inay keento technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba la soo afarta waxa weeye waa tallaabooyin jiraan maanta la isla afgaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin karna maxaa ugu dhowan ku wada heshiin karayna maxaa adag أنا وحلي رضام معي إلى حالي ما ناكل الصيحة محان طول قاضنا هل كانوا كيقولنا محان contribution محان كتر شركة إنه بوليستو إنه بوليسنو آد بان صوتهم آد بان وهذا وحنوضنا ورب شركة يؤمد إن السوق محل بوليسن كره أنت يمكن السوق ولا يشين كره inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaad deena labadun baa tiimayla tahay dee xil baad saaran maanta waxaa ummadda dhowraysanaysa dee halkan idinkana sugan halkan wada fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysan oo in badan baa guul lagu gaaraa taanu intaasaan naga dardaarana waana mahadsantiin madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo dalka Jabuuti oo soddonkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaas sano tanatium bay ka mid tahay ilaahay ka jaayisiin doona inagii shirkeena maanta qof wala af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka wala soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inuu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiibo la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonayo dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xal ku gaaraan taas ayna saaran qof waliba hadadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run laga dhigo hal rumay taas baa la naga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aan u aragn aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qodas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdhaawaan u dhig idinkana science lagbaan ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas-uuliyaddii waan soo wareejin guddidan wasaaradda loo soo wareejiyey anagoo tilmaantayda waa nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba la soo afarta waxa weeye waa tallaabooyin jiraan maanta la isla afgaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin karna maxaa ugu dhowan ku wada heshiin karayna maxaa adag أنا وحلي رضام معي إلى حالي ما ناكل الصيحة محان طول قاضنا هل كانوا كيقولنا محان contribution محان كتر شركة إنه بوليستو إنه بوليسنو آد بان صوتهم آد بان وهذا وحنوضنا ورب شركة يؤمد إن السوق محل بوليسن كره أنت يمكن السوق ولا يشين كره inteebaa adag maxaa la qaadi karaa
marka idinkana waxaa dee nalabadun baa timbay la tahay dee xil baad saaran maanta waxaa ummadda dhegeysanaysa dee halkaan idinkaan sugan halkaan wada fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysan oo in badan baa guulaha ku gaadhaa anigu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantii madaxweynaha jabuuti iyo shacabka jabuuti iyo dalka jabuuti oo soddonkii sannadood ee soomaali burbursanayd intaa la daba joogay caqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaas sano tana tii unbay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaa'isiin doona innagii shirkeenna maanta qof waloo af soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahy brofesor geeljire mid beer qodaaya mid doonni saaran qof walba waa faallaynaya shirka waa layna soo eegaya waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin karaa inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxaa la isugu yeedhay oo halkan loo yimi dad khilaafsan oo kala fog in ay gaadhaan xal ay isku afartaan dad saaxiibbaa la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso wakhtiguna ku khasbaayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xarig kula gaadhaan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag ha laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hala rumeey taasuu baa laynaga soo ku soconaynaa xagga yaga waxaanu halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta soomaalida qudaas maanta soomaali maxaa u dana qodobkee u dana eenu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladeena waxaanu u sheegaynaa se walaaltinimo ah iyaguna waa sidoo kale waxaanu diyaarnahay inaanu dhegaysanno ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaanu dhegaysanno oon dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdhaawaan u nim idinkana saayisleg baanu ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii baa shiray oo hadlay oo dhegaysanay mas-uuliyaddii waanu soo wareejin guddidan wasaaradda loo soo wareejiyey annagu tilmaantayda waa nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noo dan khasab maaha in maanta wax walba laisku afarta waxaa weeye waa inay tallaabooyin jiraan maanta laisla afgaran karaa maxaa inoo halkee ugu fudaynu ka heshiin karnaa maxaa ugu dhowaynu ku wada heshiin karaynaa maxaa adag annagu xagga yar haddaan nahay ilaa xalay maanaan kala seexan maxaynu dul qaadanaa halkaynu ka goynaa maxaa aynu contribution maxaynu ku tarnaa shirkana inuu guulaysto oonu wada guulaysano aad iyo aad baanu soo jirin aad iyo aad iyo aad baan u hadan waxaa noo daran warab shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imika la isu dhawo laga heshiin karaa inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa dee nalabadun baa timbay la tahay dee xil baa idin saaran maanta waxaa ummadda dhegeysanaysa dee halkaan idinkaan sugan halkaan wada fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysan oo in badan baa guulaha ku gaadhaa anigu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantii madaxweynaha jabuuti iyo shacabka jabuuti iyo dalka jabuuti oo soddonkii sannadood ee soomaali burbursanayd intaa la daba joogay caqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaas sano tana tii unbay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaa'isiin doona innagii shirkeenna maanta
qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geeljire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka waliina soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeedhay halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afkartaan dad saaxiiba la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalkooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run hal la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hala rumeeyo taasuu baa lanaga soo ku soconanaa xagga iyaga waxaan halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta Soomaalida qodaas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana eenu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogdhaawaan u nim idinkana saayis lagbaan ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii baa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyaddii waan soo wareejin guddidan wasaaradda loo soo wareejiyey annagu tilmaantayda waan nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba la isku afgarta waxaa weeye waa inay tallaabooyin jiraan maanta la isla afgaran karaa maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin karaa maxaa ugu dhowan ku wada heshiin karaynaa maxaa adag annagu xagga yar haddaan nahay ilaa xalay maanaan kala seexan maxaynu dul qaadanaa halkaynu ka goynaa maxaa aynu contribution maxaynu ku tarraa shirkana inuu guulaysto oonu wada guulaysano aad iyo aad baanu soo jecin aad iyo aad iyo aad baan u hadan waxaa noo daran warab shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imika la isu dhowo lagu heshiin karaa inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa dee nalabadun baa tiimbayla tahay dee xil baa idin saaran maanta waxaa ummadda dhowleysanayso dee halkan idinkaan sugayno halkan wada fadhinaa isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysanoo in badan baa guulagu gaadhaa dee anugu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantii madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo dalka Jabuuti oo soddonkii sannadood ee Soomaali burbursanayd intaa la daba joogay caqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaas sano tana tii unbay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaaysiin doona innagii shirkeenna maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geeljire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka waliina soo eegaya waxaa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeedhay halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afkartaan dad saaxiiba la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalkooda gaaraan
taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag ha laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo ha la rumeeyo taasuu baa laynaga soo soconaynaa xagga yaga waxaanu halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta soomaalida qodaas maanta soomaali maxaa u dana qodobkee u dana eenu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladeena waxaanu u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa sidoo kale waxaanu diyaar u nahay inaanu dhegaysano ra'yiga naga duwan kaayaga